madaxda dawladda odayaasha jaahidiinta mudanayaal iyo marwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh caawa habeen weyn waa 31 May 28 sano ayaa caawa aynu ka joognaa xasuus ahaan 28 sano marka dib loo eego waa waqti dheer kolkaa wixii aan ka taaban karo umar bi ka taabanayaa maanta oo kale waxaanu ka soo dhaqaaqnay meesha leeyahay balaysa matar ciidan fara badan baanu ahayn laakiin marka loo eego ciidankan ku soo soconay dhibic baanu ahayn labadii baanu soo dhaqaaqnay maalnimo meesha leeyahay Sheekh Moolde ayaa ciidan loo dhigay halka dagaal khafiif ah lagu qabsaday dagaalkii markii la bijiriyay ciidan yar buu ahaa kolonyadii naga dambeysay ma ogeyn in meesha ciidan lagu qabsaday marka waanu dhaafnay marka Sheekh Moolde dhaafnay haddana waxna duliina dayuuradahaasi waxay MiG-19 waxay ugu lahaayeen wixii aan wadanay inay digada ka dhigaan laakiin hadda alla kama sugmin dayuuradaha waxa laga waayay dabayshii qoriyaha cabeeysi saddex goor markay la dul yimaadeen oo arkay inaanay dawladda waxba ridayn ayaanu keenaankii iska soconay waxaanu soo gaarnay wadada leedahay masalaha saddex meelood baa laga yimid xagga garka ciidama naga soo gaaray xagga bariga oo ciidan dhexda noo dhigo oo dariiqii aanu noo dhigay aanaan soo marin oo komarre noo dhigay ayaa isla bari naga soo gaaray 6 ilaa 7 xoogaa dagaal aan qabsanay labada qolo waan iska riixnay markay 7 ahayd ayaanu dib isu urursanay markaanu dib isu urursanay ayaa haddana taangiya naga xagga dambe naga weeraray taangiyadii iyagana waanu basrinay 8 markii roob baan qabsanay roobkii markuu naga qaaday wadadii aanu mari lahayn ee sida dhaqaaqa ciidan baa fadhiya kolka wax tala nagu cadaatay meel aanu mareebo jirto dariiqii ciidan baa fadhiya waana waqti habeena gararkan magaalada dusheeda garanaysaan ayaanu laba gel dhexdooda ka soo dhacnay wadda ingiriiski sameeyey oo berigii hore garhkay uga tegi jirtay oo gararka afkooda mari jirtay ciidan may dhigin waddaduna qorshaha kumay jirin waddadii baanu ku soo dhaadhacnay waxaanu aragnay waddadii oo maran markaa taasanu ka soo dhaadhacnay kolkaa baabuurtii dushaanu kaga nimid lug baanu nahay waxoogaa ciidan oo ciidankii wadanay maxaan kula qalabka technical ahaa uma noo socday laakiin baabuur dushaanu kaga nimid xagal iyo xaraf dhexdooda halkan ka soo dhacnay laakiin xagga xagal loo dhowiyey waanu soo soconay waxoogaa dhexda ku nasanay ilaa in saacada deetana waanu soo dhaqaaqnay halkaanu ku kala baxaynay 100 shilin buurta leeraa xiis beerta aadan jeeg ayuu qorshaha iyagu waa inaan ku kala baxno dabeetana waan isku soo gaadhnay si wanaagsan baan u kala baxnay saddexdeedii ciidan ee wada socday meesha si wanaagsan baan u kala baxnay marka laba yool baanu lahayn yool wuxuu ahaa taliska qaybta yoolka kalena wuxuu ahaa
xerita hadheer loolan jiray oo taliska gaaska labaada xerada waxaa ku qoraa allahu naxariistay aadan cadde oo ciidankiisana cani watay aniguna taliska qaybta ayaan ku qoraa kolkaanu kala baxnay aanu dhaqaaqnay ayaan saas nagu dhacday waabay nagu dhawaayeenba shaqadeedu way maqlayihiin markaa waanu jiibnay ciidanka wax badan nagumay qaadan waxaanuu gudbay taliskii guudna in saacadaanu ku jiray markay 3:00 ahayd ayaanu taliskii guud aanu gacanta ku dhignay daarta markaa dhisan baanaan ogeyn hoosta waxay ku leedahay basementka waxaa ku jira ugu yaraan 7 janan iyo 50 askari oo kale xaggooda waanaan dhaqaaqin waa la dhaafay aniguna ciidan baan dusheeda kaga soo xidhay markaa qaybtaa hore waqtigaasaan ayaanu qabsanay qoladii kalena ciidankii maxaan ku dhahay aadan caddana iyaguna 4 ilaa 4 markii bay qabsadeen taliskii birjeex ama taliskii gaaska labaad ciidankii aan ku xidhay xero taliskii dabadiisa ciidamo wadada soo socday oo ka yimid caracad meesha leedaa gaaska koowaad ayaa markii foodaystaray ilaa waaberigii baan isku jirin kuwa markaanu kala food qaadeen sida xeradii soo gal xeradii oo qolo kala haystaan soo galay dooxaana lagu shubay intii gacanta igu jirtay ilaa 60 ah ayaan dooxa kala soo tallaabay dooxa markaan kala soo tallaabay halkan imka taliska wasaaradda daakhiligu tahay ayaanu ciidankii soo taagnay guryahan hore wadayno laga dhisaa meesha ku arkay halkaasaan in ku nasan in nus saaca horaanu uga soconnay 60 kiloaanu nahay waanu soo soconay biyihii ingiriisku algamboorta dusheeda ayaanu soo fuulay maanaan sida raadiyaan lagu wada hadlo ciidankii 500 ee gacanta igu jiray 60 kaasuna gacanta igu jira markaa rasaastu meel way ka dhacaysaa waxa lagu wada hadlaa ma jirto markaa horta qaybta hore intaasay ku dhammaatay anigoo galsana ku jira ayuu aan caddayin waa maxaad ciidan haystaa waan kula 5 hayaalin halkii baan xoogaa fadhinay waxaa magaalada iga soo horeeyey allahu naxariistay gacmo dheere iyo cali guri oo kaba nool iyo cismaan awrliqe markaa waanu soo helay gacmo dheere mooyaan labadii kalena helay waxaan ku dhahan ciidankan aadan cadde kaxeeyo dhagaxaasan hawaanaa geeye aadan cadde halkii baa ciidankiisi la geeyey anugu waxaan ku hadhay gol janno ilaa galabtii gol jannaan fadhiyey ciidan kaloo markaa arkaya ma jiro markay 6 ahayd baanu ciidankii rigeynay ciidankayga ilaa 9 uu noqdo ciidamo kala meelaan ka soo baxay waxaan isugu tagnay halkan wadada 150 kale ilaa ayaan isugu wada tagnay allahu naxariistay axmed dhagax waa berigii uu soo galay isna isagu wuxuu ka soo galay xagga isha moodame taangiye wadada iska heleen fara badan isagii saraakiishii socotaan ushelay isaguna waxa gacanta ugu tiray 8 ciidan marka la isku daro 150 ayaan halkaa isku helay oo isku urursamay tan ciidamadii kale meelay jiraan ma garanayno meelo bixin ma garanayno waxa weeyaan taliskayagii meel jiro markaa ma garanayno communication ma lehe ciidanku wuxuu ku socdaa communication ciidanku haddaan communication lahayna si loo dhaqaajiyo ama si loo way arag tahay xaaladdaasaan ku jiray waa ku noogu beriyey marka waxay meeshayna naguna ka baxno laakiin xagga allumaanu ka fadhinay waayo ciidan 150
ووحي عيدا ما من أفرق سوق الحياة دينه ماشي فديا معها لكن أنت لا إله إلا على نوتي وتشيء وأنا الأساس هنيي كالبيت كان الله يرى ما أنت لما نبني كان الله يرى وحير كلام كتير أفرق ولا شم غلط الله هبين قصة حاب بقول لجاري أيوة إحنا وصل عيدا عيد الحوق لي ولا سديتنا وعيد ما دي حاجة دمدوا المغرية ما وصل قري مركزين دي ما فريستي نيجي سلاكيشي دوني أوقع حبوا يوضح ما ينو أنا عيدك هلاي ده محمد قري نتكلم إنه حصلنا داوعينه ونقصنا صلى الله عليك هبين كل حبوا له جاري وحعين كان لاي وحافظة 26 قفيو كبح بي خلص جوان كجابي المير ينير يعري وحيل الدين كان هالدين أنا وعلى تاموجين صلاة من عينك كعيي سديتك كهاي صقري عينك عبد الهاشين وتي هل كانوا فديهم كان كلام من قرن اليوم وحنقول والمجال والدول من السنة طبعا نقصهم بحياة فرجع شلت بيسيه مجال الهوستر وطيب كهجرة إلى عدة إلى مثلا عام كوهاي شاهدتي ودول الهوستر بعد عود دول كهجرة كودي وإسقاطيين ودول كم يقولون قرني فقشتي أو كعبيسن حاجيدو ودرس ولا دشان ودوني المجال بربريان أي طريقين وردلين محرية مركي هجرات الدولة وحراء أي محافظة بالديانتي ولا سوق بصدق مركان يعني واحد عيل لما قرأ إنه لمنكي جنب الجسم وحين الدين ما يوحي كلام يبحثونه عبد الله الشيخ مركي ما كان سديت حاجيدو دوري صدق قريو امسك السينة يشر هاديو هورت حافظنا ما انت سير الجاج وحين ما انت كنت به إذا ما دي تلسكو حدا وقيلهم حول صوت قلين إذا ما دي حدا سنوب حول صوت قلين ما انت الشرادة ما انت الحادة وحنا من عيوان اللي تنكرين مركا هورت الصوت دلال كيف نوضم بالله الأساسية هاي مجال اسلام كسوق الاساسيه هي waxaanu qabsanay ilaa totalka haddana waxaanu qabsanay ilaa wadada jigjiga wadada kale magaalada ka soo galayay waxa ay galeen naxar maalinta toddobaad ayaa loo dhaawacmay horta ay dagaal maanta soo ugu dambeysay labadii sano oo dambe iyo wixii dagaal dhacay iyo wixii balaayo dhacay iyo wixii xoog dhacay aniga uga dambeeyay اسلمنا عينا كيلا يدا سوق دلي تودا كما خورين لكن حول يا راي تدخل دغال كو كينay dad kale malaafiye baa loo dhacay markii malaafiye loo dhacay markii dhaxeen magaalada dadku ka baxay ee dibadda loo baxay ayaa guusheeda horseeday halkaana waxa ka bilaabmay بلوغي شبكة فويني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته